Arday ka tirsan waaxda cilmiga deegaanka ee Kulliyadda Beeraha Jaamacadda Ummada Soomaaliyeed ayaa saan waxbarasho ku tagay Jasiira Lagoon ee ku taalla agagaarka xeebta Jasiira, dhinaca koonfureed ee magaalada Muqdisho. Deegaankaas waxaa ka buuxa kheyraad kala duwan. Dhirta ka baxda waxaa ka mid ah geedka shooriga iyo dhirta doogga ah ee cusbada u adkaysata. Waa meel ay shimbiraha iyo noolaha kale ay ku nastaan, mararka qaarna ay biyaha ay fadhiistaan. Waa dhul dabiici ah oo bilic qurxoon leh, lagana soo saaro cusbada una baahan in dib loo soo celiyo oo la ilaaliyo. Sanadkii 2001 goobtan waxaa si rasmi ah loogu aqoonsaday Key Biodiversity Area, meel muhiim u ah kala duwanaanshaha noolaha, ayna u aqoonsadeen hay'adaha caalamiga ah ee International Union for Conservation of Nature iyo BirdLife International. Tani waxay muujinaysaa muhiimadda deegaankan u leeyahay nafleeda kala gedisan iyo bulshada Soomaaliyeed. Jasiira Lagoon la yiraahdaa marka meeshan waa deegaan isugu jira saddex qaybood oo waaweyn: mangrove ecosystem, salt marsh oo hadda aan ku taagannahay salt marsh ecosystem, iyo important bird nesting site, meel shimbiraha ay ku hakadaan oo muhiim ah areadan markii la joogo Muqdisho. Ujeedada safarka waxbarasho waxay ahayd in ardayda si toos ah u bartaan dabeecadda dhulbadeedka iyo dhibaatooyinka kala duwan ee ka taagan iyo sidii xalka qayb kaga noqon lahaayeen. Kulanka waxaa furay Deanka Kulliyadda Beeraha iyo Cilmiga Deegaanka ee Jaamacadda Ummada Soomaaliyeed. Soomaaliya oo aan cagaarino, aan qurxino, aan beerno, dhirteena aan soo ceshano, aqoonteedina aan yeelano, jiilasha naga dambeeyana ay u yimaadaan dhul qurux badan oo Soomaali la yiraahdo, sidii annagaba awowyadeen ay nooga dhinteen. waa mahadsan tahay. waxaa jooga maanta khubaro idinka dharjin doonto qaybaha kala gedisan cilmiga. waxaan ka hadlayaa ahmiyadda ay leedahay safarkan cilmiga oo kale ardayda jaamacadda Ummada Soomaaliyeed. waxaa weeye theory way qaateen, wax badan oo daraasaad ah waa la qaatay oo theory ah. waxaan u baahanahay practice iyo in la taabto, lala falgalo bi'adii iyo deegaankii, in lala falgalo oo la taabto oo baahiyaha ka jiro iyo noolaha kala gedisan oo halka ku nool, baahidiisa in la daraaseeyo, kuwa dabar go'aya in maaragtay dabar go'a laga ilaaliyo oo loo kaalmeeyo oo la badiyo, kadibna lagu soo celiyo deegaankooda. Inta ay halkaas joogaan ardaydu waxa ay qaateen casharo kala duwan oo ku saabsan dabeecadda iyo kala duwanaanta dhulka iyo kheyraadka kala gedisan ee laga helo. Casharada waxaa bixiyo khubaro ku xeeldheer culuumta deegaanka iyo badaha, iyadoo diiradda la saaray fahamka iyo ilaalinta dhirta shooriga. Si guud mangroveska waxaa loo qaybay qaab generic ah oo yacni red, black ama gray iyo white mangroves. saddexdaas loo qaybiyaa si generic ah markii laga soo tago taxonomic classification. markii laga soo tago kan aan hoos taaganahay marka waxaa waaye black ama gray mangrove. black mangrove ama gray mangrove waa isku mid, gray iyo black. waxaa scientific namekiisu uu noqonayaa Avicennia marina. meeshaan inay qoynaatay ahayd marshi area waaye, waa tan lahaa salt marsh. marshka waxaa waaye carro qoyan oo dhir ay ka kor baxayso marshi. meeshaan markii inay qoynaatay ahayd, waxaan madow ee ka muuqdo waxaa waaye waa algae coverkan, lichens iyo isku jiro. Intaas kadib ardaydu waxay halkaas ku beereen dhir kala duwan si ay qayb kaga noqdaan dib u dhiraynta dhulka iyo badbaadinta deegaanka. Saanka waxbarasho wuxuu ahaa mid aad u qiimo badan oo kor u qaaday fahamka ardayda ee cilmiga deegaanka iyo badaha. Fursadaha noocan oo kale ardayda waxay siinaysaa waayo-aragnimo nololeed iyo aqoon muhiim ah oo ay kaga qayb qaadan karaan xalalka dhibaatooyinka kala duwan ee uu wajahayo deegaanka Soomaaliyeed.